سلام saxaabtay maanta waxaa idin qaybta wanaagga taxniina qaybta ruuxna jid markay injii wax ka soo jeegtay hooyadii iyo ayeeyadeeda waxay safnay injii ayeeyadeeda waxay ku dhahaysaa hadii injii ay ku dhahday wax soo saaray fiican kan qalad miyaa kadib daalay waxna qisaabeen ka tagaysaa waxay imaanaysaa qolkeeda waxaan fiirinaysaa sawirkii ay sida jirka u galayeen iyada iyo tiimkii hore ninkaas waxaan arkaynaa daalay oo company joogto waxaan diyaarinaysaa dokumentiyo kadibna ay soo qaadaysaa waxay imaanaysaa company cusub ee naam Dusan iyo asxaabtiisa waxay meesha ka arkaysaa dad badan oo albaabka taagan ayadoo gudaha u gaarto xareeyo mid ka mid ah wuxuu ku dhahayaa ka hor qof walba ma gelin number ayuu taayeen yaa isa kadib waxay wacaysaa naam Dusan asagana uu ku taminayaa waxaan arkaynaa naam Dusan iyo asxaabtiisa oo fadhiyaan ma gelin ayagana waxay ku dhahayaan nama naqaan suuqeynta iyagana waxay ku dhahayaan anaga ayaa idin bari doona kadibna waxay siinayaan kaarkooda iyagana waxay ku dhahayaan anaga ayaa idin soo wici doona kadibna way ka tagayaan naam Dusan marka waxa soo wacaysaa asagana uu ku taminayaa Hongson wuxuu ku dhahay qofkan ku soo wacay ma ka qabad kadib waxa albaab soo istaagaysaa weynayaa anaka waxaan arkaynaa injii hooyadeeda waxay hooyadeeda ku dhahaysaa inta maxaa ku keenay waxay dhahaysaa waxa cunto ayaan ku keenay hooyadeeda waxay ku dhahaysaa sanadka cusub ma imaanayeen waxay ku dhahaysaa waa mashquulsanahay hooyadeeda waxay ku dhahaysaa baa waraaqad furinka uu saxiixay waxay ku dhahaysaa wax fiican waaye waxay ku dhahaysaa ilaa guri hooyada ku nooshaayeen waxay dhahaysaa ha kadib waxay sheegaysaa in ayeeyadeeda indhaha si daciifay marka dambeysa nixisa hooyadeeda waxay ku dhahaysaa ayeeyadeeda intaysan indhaha beelahan marno imaan la soo daanay Naam Dusan kadib way fariisnayaan waxay ku dhahaysaa waxaan rabaa inaad shaqaaleysiin siinaysaa kaarkeeda waxay ku dhahaysaa hal mar iyo galaad inaad idin sharxo waxyaabaha uu soo saaray kambanigayga Dusan wuxuu dhahay waa ogaay wuxuu kambaniga soo saaray kadib wuxuu asxaabtiisa ku codsanayay inay hal mar banaanka aadaan markay banaanka soo aadaan Dusan wuxuu Hongson ku dhahayaa kaararkeedii buu ku soo daanay kadibna uu ka tagayaa daaniyo Naam Dusan waxay arkaysaa mashruuc ay si xsan kor qorsheynayeen waxay ku dhahaysaa ilaa halka mid ku yaala asagna wuxuu ku dhahayaa wax soo saar si xsan kor hadalka didaysay oo ahaa wax walba yeelayeen qiyaaligan waa laga fiican yahay maalinkaas hadalka didaday zayd ayuu ii dhaawacay maalinkaas adiga waa saxsan qofka jeceshahay aniga qofkan jeclaan adiga ma ay marowna wajiga dambaarka iyada meesaytaysa soo raacaysa gaarigeeda ayadoo markaysan Naam Dusan wuxuu saxna qalo tirtiray mashruuci si xsan kor diyaarin rabeen marka waxaan arkaynaa Dusan suuqa amsalan kadib waxay imaanayaan mustarahan waxaan rabnaa xafiiska ay jaarno mustarahan wuxuu ku dhahay inta ma joog rabtiin isaga wuxuu dhahayaa mustarahan uu soo baxay wuxuu imaanayaa baakinka wuxuu arkay daaniyo madax ku garaacay daaqada uu imaanayay iyada markay isaga ragto yaa isa kadib gudaha ayuu soo galay wuxuu ku dhahay maxaa kugu dhacay iyadan waxay ku leedahay shirkaddan waxay u baahan tahay wax soo saar fiican anaga xanaadeen Naam Dusan iyo saxaabtiisa si aan u shaqaaleysiin laakiin iyaga way diideen ka waxaan arkaynaa Naam Dusan ku soo galay wuxuu imaanayay biis wuxuu ku dhahay bunaniga qashqayaan ka soo helay ilaali wuxuu biis ku dhahay waxaan tuuri karin hadana aan ilaawi karin maxaa la sameeyaa intaas waxaan arkaynaa Naam Dusan waadintii tusnaa marka dibna banaanka ay soo aadayaan Dusan wuxuu waadintiis ku dhahay waa in soo wici doonaa kadibna uu ka tagayaa dad ku jira waxaa mar uu dhacay baskiilka dib uu soo kaxay wuxuu jiifinayaa midnanka waxaan arkaynaa daaniyo ayeeyadeedii hooyadeeda oo soo jiraan hooyadeeda waxay ayeeyada ku dhahaysaa waan ku soo laabanay intii uu soo kadibna way ka tagaysaa ayeeyadeedina iyadoo koofiyadiiska maxay waxaa ku dhacay koofiyada iyadoo raadinaysa waxaan soo qabanaysaa ayeeyada way mahadcelinaysaa injiina meel ay fariisnaysaa waxaan ogaanay in ayeeyadeena waa naqtay injiina markay ayeeyadeed xaaladaas ku aragtay iyadoo oonaysa ay meesha ka tagaysaa wuxuu la hadlaysaa qof waxayna ku dhahaysaa waraaqad korintii lagula wareegay ayaan u baahanahay kadib waxaan arkaynaa daaniyo oo imaanaysa Naam Dusan wuxuu ku dhahay waxaan idinka qabanaysaa ayaan maxay dhahaysaa waadintaada ayaa ii soo sheegay in halkan joogno wuxuu ku dhahay waxaan isku soo dhibtaa soo bixiraban way qabanaysaa waxay ku dhahaysaa halkee u socotaa asagana wuxuu dhahayaa safar dheer ayaan soo galay sababtay hortaaganta waxay tahay aniga taas way xanuujinaysaa ayaan waxay ku dhahaysaa waxaa u baahanahay inaan wada hadalno kadib way wada fariisnayaan waxaynu keenaysaa cunto asagana wuxuu ku dhahay ii sheeg sababtaa gaariga kilkiisa wada aad ugu bixisay tiriisan iyadana waxay gelaysaa xasuus markii uu sheekinaya sheekada meegtoosan xusuusta kadib waxay ku dhahaysaa sheekada saad ayaan u helay sidaas darteed ayaa magacaas ugu bixiyey xogaa kadib wuxuu arkay inay hurday kadibna uu imaanaya wuxuu soo xasuusnay xasuusii quruxda badnaa ay soo wada qaateen wuxuu ku dhahay in fikirkaaga ayaan u helay kadibna wuxuu arkay dhaawac jilbka soo gaaray wuxuu xirayay garbaati uu gacanta ku watay kadibna wuxuu soo bixinay faylka ay waday wuxuu bilaabay inuu aqriyo markaas waxaan arkaynaa uu soo imaanay meesha ay ka shaqeyso Joos ahaa wuxuu meesha magaceeda ka arkay sawir ay soo dhigtay Instagram-keeda uu isqarinaya markay soo baxday isku aadnay wuxuu iska dhigay inay si keesi isku arkeen iyadana wuxuu ku dhahaysaa maxaan ka qabanaysaa asagana wuxuu ku dhahay shirkada sheel la noqonaya raadinayna iyadana wuxuu ku dhahaysaa ganacsi cusub inay bilaab rabteen asagana ayuu dhahay kadib maqaaxay isku soo raacayaan waxay ku dhahaysaa qorsheysay magacaada u bixin lahaydeen kambaniga asagana wuxuu ku dhahay waxaan u bixinaynaa TMT wuxuu ku dhahay marka ma rabtaa inaad dib noo shaqeysid ankan waxaan arkaynaa Dusan oo jooga kambaniga ama waxa uu maana kaayna mustarahan wuxuu ku dhahay aad u baahnay asagana wuxuu ku dhahay mariyo ayaan u baahnaa kadib wuxuu maanay mariyo wuxuu ku dhahay kambaniga shan rabaa inuu maalgeliyo maxaa sameynayeen wuxuu ku dhahay qorsheyn ganacsi wax miyay ku ogeeyeen asagana wuxuu ku dhahay mayadana waxay ku dhahay kambaniga shan wax faa'iido malaha asagana uu madcelinay uu ka soo tagayaa kadib waxay arkeen mustarahan wuxuu ku dhahay waxaan rabaa inaan wada hadalno kadibna ay soo wada fariisnayaan wuxuu ku dhahay yaraan maanta ku qeylna kaliya waxaan rabay qof aan ku nafsiyo mustarahan wuxuu ku dhahay aniga xitaa yaraan naqsixna ayaan kula hadlay runtiina ka hadlayeen maleynayeen wuxuu ku dhahay waxaan rabnaa in fikirkaaga noo darsatid wuxuu ku dhahay lacaladeed program sameey
rabtaan company program u sameeyaa kan kale waxaan arkay daalay inay duusan soo baxaan daalay waxay maanta inay duusan waxay ku dhahaysaa noo qorshe maxaan ku sameeynaa shir miya u baahan tahay ugu yaraan ganacsiga soo socnaa fiiraydo rabtaan inay warqad soo bixiso waxay boortay kaweynaysaa warqadii soo wuxuu ku dhahay aniga ayaa iyo maxay ku dhahaysaa ma aqrisayna marka waxaan arkay labada mitaan soo joogaan soo wuxuu labada mitaan ku dhahayaan waxaad u baahan tihiin inay shirkaddeena u shaqaysan yihiin waxay ku dhahayaan sababtoo ah waxa la dayanahay kan kale mas'alaha juuso wuxuu mas'alaha ku dhahay daalay waxayna soo bandhigtay inay shirkaddu ka shaqeeyaan ma aqbalana mas'alaha wuxuu ku dhahay hadii ay maalgelin noqoto waxaan waa inay noqon doontaan dad meel iska soo saaro waxaan arkay daalay oo maanaysan jiin waxay ku dhahaysaa waxa soo jeegaysaa waxay ku dhahaysaa ha asxaabtoo dhan waxay ku dhahayaan gooban kadib waxay soo wadaacayaan tijaabo u sameynayay waxay soo koraysaa gaari waxaan gaari u saarnaa duusan waxaan ku dhahay waan bilaabi karnaa gaari wuxuu bilaabay inuu kaligiisa soo dadka dhan waxay ka wada fiirsanayeen TV-ga intii adeerkeeda waxay ku dhahaysaa waxyaabo ku dalqinooy maxaan ku keenay soo wuxuu dhahayaa laakiin anay sharad ayaan dhiganay injineerada ka qayb qaatay gaarigan sameyntiisa halkan ay joogaan wuxuu ku dhahayaa wax kasta waan bedelnay waxay cusub ayaan ku soo darnay abuurkan system gaar ayaan isticmaalnaa halka daalay inay duusan gaari saaran waxa gaari loo horjaray bomba lacag gaari inuu istaagay timkan markay arkaan ay farxayaan gaarigan wuxuu ka leexanay gaari shirtiisa socon dadka dhan markay arkaan way sabinayaan dib gaari hal mar ayuu istaagay injineerkeeda timkiis markay arkaan ay farxayaan waxaan ogaanay inuu gaari ka istaagay yaanyo wadada mareysay wuxuu dhahay baabuur bani'aadamkii xayawaanada naftooda buu ilaaliyaa wuxuu dhahay tijaabada ay dhammaan rabta wanaanka caadiina xogaagtii waxay maanaynaan duusan daalnay hata isginay ayagoo faraxsan guushay gaarin sawir ay iska qaadeen xogaag dib waxay kusoo laanayaan kambaniga jeen waxay daalnay ku dhaysaa shirka waan hangalna waana ka gudbeena aanin waxay gacanta kasoo qabsanaysaa injeek dib waxay ku dhahaysaa nagul dareysta ee dhiigaysa Soomaaliyeed waxay ku dhahaysaa laakiin iyagu kalsoon sharku badan maadaama aniga heesto aan guuleysanayna aanin waxay dhahaysaa waxaan farahan ka qano timkii had kortirteeda iyo way mar wadina idin kadin waayo waxa ogaanay inuu duusan maqlaa dhanka joosahay waxa soo dhaxay muuqaal YouTube soo dhigay soo markay aragtay kusliisa waxay naqnaysaa kommentiyaasha loo soo qoray kadib waxay maanta kambaniga soo sharxa waxyaabo cusub oo soo darab gaarigooda waxay ku mashquulaysaa wajigiisa waxaan kusoo dhaxay kommentiyada loo soo qoray soo fiirnay wuxuu ku dhahay ma dhageysno saayeen haay qeybta kadib waxa meesha maanta duusan adeerkiisa waxaan tusnay application turka ee la soo saaray duusan wuxuu dhahay waxa uu saadaalin karaa adeerkan wuxuu dhahay ahaan taan doorna duusan mid kamid ah ayuu dooranaya duusan wuxuu dhahay saadaalin oo kaliya waayeen kadib uu soo qof daawacad waxa maanta joosahay wuxuu ku dhahay waxaan ka codsan karaa wuxuu ku dhahay haayeen wuxuu ku dhahay muuqaalada YouTube soo dinaysa jooji wuxuu ku dhahay haayeen wuxuu ku dhahay waxaan rabaa in xiriir samaysan mana rabo in qof xiriirkeena ogaado san balan waayu dhahay wayna ka tagaysaa kadibna waxay wax ka soo sheegaysaa mas'alaha waxay ku dhahaysaa inuu mar walba martan qasaaro ku dhahaysaa kawran lacag hadii aan shirkan ku guuleysano asaga wuxuu ku dhahay ma dhacayso kaliya lacag badan ayaa idinka fiicsan waan guul dareysnaysaa marka shirkan iska dhaafa dib way soo wadaacayaan waxay imaanayaan dhanka ay wajigaaga sataan waxa arkaynaa duusan kadib gudaha soo galayaan halka wuxuu joosahay ku dhahay in gram sidoo wax liima taqaanayeen ha ay dhahaysaa kadib uu imaanayaan waxa arkaa hogsan uu nasiiraya wuxuu sudiyay inuu dhaxda soo galo waxa uu xamtay kamida uu tagay joosahay inuu qaslaysaa kalaas walaal wiishka duusan wuxuu taani ku dhahayaa inuu naqsiina shirtaan dhigno waa ogahay inaan ku khasaari karno sarhan wuxuu ku dhahay hadaad bogtay inaad ku khasaaraysid maxaa galaysaa duusan wuxuu dhahay khibrad ayaan ka qaadayna oo guuldarada guusha ay ku bartaa sarhan wuxuu dhahay waxaad maalaa inuu arkaa inuu mogolaan doonta shirta iyo hadii ogolaatad ku guuleysan doonta wax ku ogaan xalqa soo socdo ku maasantahay daawashadaada waxay noo dhiman xalqada ugu dambeysay laagtadna bye bye